بركاته waxaan u maleeyaa waqti fiican baa ku nooshiin saacadan ama barxadadan haddii sidaa hayna waxaan rajaynaya walaalahayow maalintan ilaahay maalin ka fiican anigu nooleysiiyo oo aad ku raaxaysatiin noloshiina maanta dadka horumar doonaya noloshooda intay gaaraan amba wax weyn ay qabsadaan waxyaabaha ugu muhiimay dadka ee naftooda ku daabacayaan waxa kamid ah dhaqan wanaag ma sha Allah maanta marka qofka laga helo dhaqan wanaag wax ka muhiimsan ama ka fiican haweeraatay ma jirto marka kaalay la daawada dhaqan wanaag طيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. nolosheer waqtigeena ku noolaa dad badan baan la kulmay ha noqoto dumar ha noqoto rag oo la yaabay noloshii ku nool yihiin iyo sidee wax u qabanayaan markii ka sanad isku dayay intaan ku dabadaydo marka dadka ku dhan waxa kamid ahaa nin baa kamid ahaa magaciisa loo oranayay Maxamed bin Abdullah ninka nolosha wuxuu u qabtay aad iyo aad baan wallahi lama xeegan la yaabo waxyaabo badan buu nolosha ku soo biiriyay waxyaabo badan buu dadka la baray ninka marka la yiraahdo khuluq ama dhaqan wanaag waa ninkii Ilaahay ku barakaystay amba uu leesiyay dhaqan wanaag oo ku dhan ninkii la siiyay ma sha Allah wallahi marka ninka hadii aan isku dabadayno waxyaabo badan baan nolosheen iska bedelayaa kaba soo qaad ninka tusaalayaal wuxuu waxaan jiray markii uu dhoofayaan ama meel uu tagayo waxa arkaysa hawl wax kasta uu ka qayb galay waxa arkaysa kaba soo qaad markay rag leeyihiin anagu waxaan soo ururinaynaa bahalkii waxaan qabanaynaa neefkan qoracaynaa ama cuntadan karinaynaa waxa arkaysa isagoo leh ana waxaan soo ururinay xaabadaan soo ururinaya ma sha Allah maanta kam mas'uul dad mas'uula oo haba yaraatay isdigeen meesha dadka kale isdigeen markii ka iska sareysiinaya markii dadku ka iraadaana ya rasuulallah joog anaga ka qabanay intan xaabada mise wax kale anaga soo ururinay wuxuu ku oranayay ilaahay wuxuu nacab yahay adoonnadiisa kamid ah oo iska sareysiinaya dadka kale oo kibir ha noqoto amba wax kale ismooday dadka kale intuu ka sareeyo saa u eegaya ha noqoto kaba soo qaad maanta markay dadku shaqeeyaan dadku way soo dhaafaan dadka gaardiyaanada amba ilaaliya ibaadada ma salaamaan qaarkood wuxuu arkayaa ninkan meesha ilaalinaya ama gabadh meesha masaxaysa intuu ka sareeyo muxuu ka sareeyaa tacliintiisa amba lacagtiisa sidaa uu sakoon taagaya ilaahu dadka naga dhigay marka rasuulku sallallahu alayhi wasallam markii kaste dadka ayuu la mid ahaa dadku isku dayay intuu wax u qabto marka soo qaad ay dad meel wal fadhiyaan wax arkaysa rasuulku sallallahu alayhi wasallam habeeraatay dadna ka waxba iskaga mudweyn dharkii uu sito dadka kale la mid ahaayeen lagama dhaxgaranay kursi weyn kuma fadhin gaarin weyn mu wadan aqal weyn mu wadan dadku markii kasta oo hayka ilaahay saana naga dhigo insha Allah qasar baan soo qaadanaynaa maanta dhaqan wanaag marka laga hadlo qisada nin bay ku dhacday uu ku hawaabiyay waxa hayd imaam buu hanika quraan xaafid buu haa wuxuu diinta waxyaabo badan ku talax tagay ha noqoto cilmu xadiis waxyaabo badan wala garanay marka hawaabigu nabigu yimid sallallahu alayhi wasallam wuxuu ka yiri waxaan bishaariye gaarsiisaa ninka jaarkaaga waxa ka tiraahdaa jannada aniga la mid tahay jannada aniga la galaysa markii ninkuu sharcanaatay wuxuu yiri maadago saa quraan u xafiday waxa ay ku dhan waxeeyay ba maanta rasuulku ku yimid ninka la kale yahay ninka kale u tagu kale yahay quraanka u gaarsii fariinta jannada intuu aan la mid yahay markii uu sharcanaatay ninkii u tagay wuxuu ka yiri war anigu kuma sheegayo fariin ma kaaga sida nabiga sallallahu alayhi wasallam laakiin kuma sheegayo ila ma ya in sheegtid wixii aad ilaahay ku raali gelisay ama ilaahay ugu soo dhawaatay isheeg buu ka yiri ninka yar jaarkiisa wuxuu ka yiri kuma sheegay gadaama ay sheegtay fariinta kuma sheegayo ugu celceliyay kadibna uu sheegay wuxuu ka yiri qisa jirta ayaan kaaga waramay ka yiri markii gabadh baan guursaday ka yiri maalin kamid ah gabadha anoo 5 bilood qaba ayaan ku arkay buu yiri uur 9 bilood wax laga yaabeen maanta ka soo qaad anigu tusaaladaas ka soo qaaday gabadh aan guursaday oo 5 bilood markaan isqablay kadib iga tiriyay 9 bilood baan uur ku sidaa wallahi wax qalbiga ku taabanayo weeyaan oo haba yaraatay qofna uu dareemeyn wuxuu qabanayo iyo sidoo gabadha ula dhaqmi lahaa intooda ugu badan laga yaabaa amba intaan ku jiro ilaahay naga dimi dhaafe gabadha way fadaxadeyn lahaayeen waxyaabo badan bay u gaarsin lahaayeen laakiin ninka wuxuu yiri diintu ana xageega jirta dadku ana xageega jiraan liana gabadhan ba khalad geysatay maanta isagu khalad mu geysan
marka asagoo waxay ku dhan arkaya ayuu haddana is yiri bay gabadhan maanta anaan asturaya buu yiri waxba kamuu sheegin dadkii ku dhan waxba muu sheegin uu khabeeyey waa zawjadeedu yiri uu asturay gabadhay maasha allah kam buu yiri hilaali ka noqday ninka kadibna maxaa dhacay habeenadii markii soo dhawaatay gabadhii dhalmadeedii buu ugu yeeray gabadh way ka dhalisay gabadhii uu qaaday miyara wuxuu la socday miskiidku tagay salaadii subax markii dadku ay arkeen isagoo oo dadku way yar kala cidlooday in salaad lagu jiro ayuu dhigay miyara salaadii uu daba gaaray salaadii uu xidhay iska tukaday salaadii markii laga baxay ku yar degay miskiidku ku yar xasalay markii dadka hayr dareeraan buu siri dadku markay dareereen ee soo baxay baa la arkay miyara waxa la iri war ima laga tagay isku soo urura war kale imahayar faraxa markii uu soo baxay isagu yiri maxaa dhacay imahayar ana qaadanaya ogaada ka haada damiin imahayar anu mas'uuliyadiisa aan qaadanaya marka dadkii ku dhan waxay arkeen imahayar isaga hadid loo xil saaray intuu koriyay imahayar dadkuna markaa waxay ogyihiin imahayar ee dibadda laga helay faraxa ninkan baa koriyay ka soo qaad marka uu asturay gabadhii imihiisu ka soo qaaday maasha allah kam wallahi waa yaab waxa arkaysa iska badaana kana islaamiyiin oo asturnay iska badaayay fadxadooday islaamiyiina ee rag markii guursadaan islaamuhooday raali galin lahayn ha noqoto eriyaal fiican ay ka yiraahdaan ha noqoto waxyaabo badan ay u qabtaan dhaqan wanaag ay kula dhaqmaan islaamuhu markii kasta waxa arkaysa gabadhii la guursaday dhinacii guurkii ku raaxaysan lahayd iyadoo ku dhibaatoonaysa ilaahay dadka naga dhigo insha Allah idinkeenba kuwii jeclaada kuwii dhaqan wanaag rag iyo dumar ku wala wadaaga noloshooda ilaahay naga dhigo insha Allah waxa dhaqan wanaag waxyaabo badan buu dadka kaga hortagi karaya waxa kamid ah waxyaabaha dadku kaga hortagi karaya dhaqan wanaagu akhlaaq xunnimada ha noqoto qabyaalada kam ay Djibouti maanta qabyaalada jirta waxa arkaysa iska badaa wax kale carabta kaba soo qaado tusaale markaan soo qaadano carabta waxa laga yiraahdaa arabay dhigcasay laga yiraahdaa waxa tihiin reer Yaban baa tihiin marka Yabantiin iskaga noqdo walaalahay San Francisco madowga loo caayayo laga wadanadii ku noqdaan Mareykanka wadanadii ku noqdaan loo leeyahay ba anaguna iska badaa wax kale reer Djibouti aan hayna dhag dadka walaalaheena carabta ee ku dhashay Djibouti marka wadannimadu wax adiga carab noqo ciise noqo afari noqo isaaq noqo qabyaalada jirto ku dhan Djibouti ama wadanada Soomaaliya noqo waxa ay ku dhan haba yaraatay dadka ereyadooda kaaga ma qaadayso wadannimadaada ama wada jacaylkaaga markii kasta wuxuu ku jira qalbiga meesha doontiba joog laakiin dadka haba yaraatay ereyadooda intay ku dhaawaceen markii kasta leeyana qof fiican baa tahay adigu maanta haddii aad dareemeyn dadka wadankaaga u dadaalaysid dadka ereyada kale yihiin intay ku dhaawaceen insha Allah marka dhaqan wanaag waxay ku dhammaano hagaajineen dhaqan wanaag haddii noloshada laga helo waxyaabo badan baa isbedelay insha Allah waxa noloshiiba qurux badnaanayso wallahi insha Allah ilaahay dhaqan wanaag dadkii ku noolaa naga dhigo sidoo qolku uu yiri rabbigeena azza wa jalla inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan ilaahay ku adl fara iyo ihsan noloshooda ku fara ilaahay naga dhigo insha Allah marka videoga soo socota waxaan soo qaadan doonaa dhaqan wanaaga ayaan laba yaro tusaale isdul taagi doonaa si yaro fiican uga sheekeyn doonaa sidii loo daba galgelin lahaa sidii loogu dhaqmin lahaa iyo sidii noloshaada laga heli lahaa dhaqan wanaag insha Allah waxaan ku rajaynayaa maalin fiican nolol fiican iyo dhaqan wanaag fiican baan ku rajaynayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh